ujeedka kulanka ayaa ahaa in la isbaro ra'iisul wasaaraha dhawaan kalsoonida baarlamaanka ka helay iyo xubnaha guddiga abaaraha ee heer federaal. Mas'uuliyiinta guddiga abaaraha ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre u sheegay in xaaladda abaareed ee dalku iminka uu wajahayo iyo saameynta ay leedahay in xukuumaddu ay qaado tallaabadan abaarta gurmadkeeda ah waxa ay timid kadib markii ra'iisul wasaare Khayre loo sheegay heerka abaartu gaartay oo horay uusan uga warqabin. waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in 48 saac oo la soo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan 110 qof meelo ka mid ah gobollada Soomaaliya gaar ahaan Baay-Bakool. waxaa kaloo la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah in ka badan sidaan hore u sheegay nus shacabka Soomaaliyeed ay aafaysay abaarta. waxaan isugu yeeri doonaa marka haddii la yiraahdo ganacsatada iyo urmada iyo aqoonyahanada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan rabaa inaan u sheego maalmaha soo socda inaan ka shaqayn doono idinkana codsan doono inaad garab istaagtaan. waa mid nagu dhiirigelinaysa in kulankeena kadib aan tallaabo u qaadno wax ka qabashada abaaraha dalka ka jira oo xitaa waxaa la ii sheegay in 110 ruux in ka badan 48 saac ee la soo dhaafay ay ugu geeriyoodeen gobollada dalka abaarta aawadeed. waxaa sidaa yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. loogu gurmado dadka Soomaaliyeed waxaan ka fikiri doonaa sida ugu hufan uguna aaminimada badan oo wixii dadkaas loo keeno lagu gaarsiin lahay iyadoo ay hormuud ka noqon doonaan dad badan oo Soomaaliyeed ama urmada haato ama ganacsatada haato ama dad kale oo bulshada rayidka ku jirta. waxaa muhiim ah shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan arrinkan inuu yahay arrin khatar. gobollada ugu badan ee hadda abaartu ka jirto waxaa ka mid ah Baay-Bakool iyo gobolka Sool oo xitaa dad badan ayaa ugu geeriyooday abaarta aawadeed. guddiga abaaraha ee heer federaal ayaa sidoo kale dhawaan magaalo madaxyada gobollada dalka gaarsiiyay lacago gurmad looga dhigayo dadka abaartu ay xoolo tirtay. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.